Socodkan waxaan hubaa inaan la kulmay qofkan ayay tiri Master Solano. Cabsi iyo baqdin aan qarsoonin ayaa laga dheehan karaa codka qofka ila hadlaya. Assalaamu calaykum sirdoon xasuus qorkii Carlos. Sheekadan waxa laga soo minguriyay xasuus qorka mid kamid ah ciidamada dambaarista oo lagu magacaabo Carlos. Dhaawac soo gaaray xilli uu howlgal ciidan ku jiray ayaa ka dhigay mid aanan gudan karin waajibaadkiisa shaqo. Isagoo aan gaarin da'dii nasashada ayaa rusqad loo qoray. Shaqada ayaana laga fadhiisiyay. Carlos isma dhiibin, wuxuuna go'aansaday inuu furto shirkad si madax bannaan uga shaqeysa baarista iyo dabagalka dambiyada. Dabcan, macaamiisha ama dhibanayaasha soo dalbada shaqadan ayuu ka samayn jiray dhaqaale fiican. Intii uu ka shaqeeyay shirkadana, waxa uu maamulay dabagalka kiisas kala duwan oo uu ku diiwaangeliyay buuggiisa nolosha. Waa sheekooyin dhammaantood ku saabsan dambiye laamaha ammaanku tamar iyo taag labadaba ay waayeen, isla markaana ay ku fashilmeen qabashada dambiilayaal geystay dil, dhac, kufsi, boob ama dhibaato kale. Xog walba oo laga helo kiiskana waxay ku soo dhamaanaysay giraan xidhan oo aan lahayn meel looga baxo. Warbixinuhu inama siinayaan jawaabo ee waxay dhalinayaan su'aalo hor leh. Xarig walba oo la raacaana waxa uu dhexda ka gelayaa xadhka kale oo murugsan oo aan la garan karin jihada ay u jeedaan. qof la waayay oo nolol iyo geeri midna aan lagu hayn, jabsi bangiyo, walaalo iyo family khaarijin isku qorsheeyay, boob kaanti taariikhi ah oo ku kaydsan madaxfiye si weyn loo ilaaliyo. waa sheekooyin iyo dhacdooyin kala duwan oo qaar ka mid ah aynu ku soo qaadan doono muuqaalkeena iyo muuqaalada xiga. kiiska ugu horeeya oo aynu ku soo qaadan doono muuqaalkeena waa Solano Family. sheekadani waxay dhacday sanadkii 2006. waqtigaas Carlos waxa uu ahaa dambi baare madax bannaan oo ka shaqeeya shirkad uu leeyahay, isla markaana uu maareeyay ka yahay. waa muddo kooban kadib markii laga rusqeeyay shaqada dawladda oo uu ka samaystay sumcad wanaagsan oo ku salaysan howlkarnimo iyo dadaalkiisa shaqo. mid ka mid ah maalmaha shaqada ee sanadka aynu soo sheegnay waxa xafiiskiisa ugu timid haweeney lagu magacaabo Maria Solano. waa haweeney dhalinyaro ah oo wejigeeda laga aqrisan karo cabsi iyo walwal xoogan. wuxuu su'aalay, maxaan kaa caawin karnaa Marwo? cabbaar ayay aamustay, kursiga ayay gadaal ugu tiirsatay. neef qaadasho kooban kadib waxay bilowday sheekadeeda. waxaan nahay qoys ka kooban 3 qof, aniga lamaanahayga nolosha iyo hal wiil oo aanu dhalnay. nolol wanaagsan oo aan lahayn dhibaato iyo carqalad ayaanu ku noolayn muddo dheer. maalmo ka hor ayaanu dareenay aniga ninkaygu in xaaladda caafimaad ee Sam oo ah wiilkooda ay soo xumaatay, sidoo kale ay hoos u dhac weyn ku timaaday waxbarashadiisa. baaritaan iyo dabagal kadib waxaan ogaanay inuu habeenkii marka aan seexanno uu guriga si dhuumasho uga baxo si uu la kulmo koox gaangi ah oo ku biiray. waxaana noo bilowday walwal mustaqbalka inankooda la xiriira. dhibka weyn ay ka baqayaan waa in inankooda uu qaado waddo qaldan, uuna faraha la galo dil, dhac, kufsi iyo falal dembi oo noloshiisa ku ridi kara god madow. waxa ay go'aansadeen in ay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqiisa, ayna la tashadaan khubaro ku takhasustay toosinta ilmaha. habeen walba waxa sii badanayay saacadaha uu guriga ka maqan yahay. markii ugu dambeysayna 3 maalmood oo xiriir ayuu maqan yahay, welina lama hayo. walwal ayaa ku dhammaaday labada waalid ee Sam dhalay, waxayna u bixeen in ay soo baadhaan wiilkooda. nasiib darro waxba ma aysan helin. waxa la gaaray habeenkii. Master Solano waxa uu dhaqaaqay meeshii ay ku kulmi jireen kooxda uu ku biiray Sam, halka Maria ay gurigeeda ku sugaysay soo laabashada saygeeda oo soo helay Sam. saacado badan ayaa laga joogaa markii uu baxay Master Solano, waxayna ahayd inuu soo noqdo, laakiin lama hayo. waxay u muuqataa in isagana dhibaato soo gaadhay. Maria waxay go'aansatay inay booliska la xiriirto, ayna u sheegto sida ay wax u dhaceen. daqiiqado kooban kadib booliska ayaa soo gaaray guriga Solano Family. waxa ay qaateen sawirada labada qof iyo warbixinaha iyo xogaha ay u baahnaayeen. Maria waxay dareentay in askartu kiiskan aysan ku bixinayn dadaalkii loo baahnaa, sidaa darteed waxay dhinaceeda ka waday baaritaan gaar ah oo ay ku raadinayso wiilkeeda iyo aabihiis. haddaba maalmaha ka mid ah ayaa laga soo wacay taleefanka gacanta. waa nambar aysan aqoon u lahayn. cidda la hadlaysana ma ahan booliska. waa nin si hanjabaadi ku jirta ugu amraya inay faraha kala baxdo arrimaha kooxda, ayna joojiso baaritaanka ay ku hayso xubnaha qoyskeeda ee ka maqan. iguma cusba codkan, waxaan hubaa inaan la kulmay qofkan ayay tiri Master Solano. cabsi iyo baqdin aan qarsoonin ayaa laga dheehan karaa codka qofka ila hadlaya. waxaan filayaa inaan u dhawaaday inaan ogaado xaqiiqda, taasina ay cabsi ku abuurtay cidda afduubatay wiilkayga iyo aabihiis. booliskuna wuu iska xidhay kiiskan kadib markii uu ka gaari waayay wax natiijo ah. cid laga shakiyo xarig la raaca ama xog la dabageli karo midna ma helin. Maria inkastoo loo soo hanjabay, haddana waxay sii wadatay baaritaankeeda. meeshii uu wiilkeedu tegi jiray iyo saldhigga kooxda gaangiska ayay soo martay habeenkii, laakiin ma aysan helin wax natiijo ah. hal maalin kadib goor duhra ayaa albaabka guriga lagu soo garaacay. waa nin ka tirsan shaqaalaha boostada. way ka furtay. fariin ku jirta bashqad xiran ayuu guddoonsiiyey, wuuna iska baxay.
markii ay furtay bushqadii waxay ka heshay dheg bani aadan iyo warqad ay ku qoran tahay waan kuu digaynaa mar labaad. dhabannahays horle iyo dhibaato ugubah ayaa la soo gudboonaatay. ma waxay u dacwootaa booliskii xidhay galka baariska ee xubnaha qoyska Solano mise nafteeda ayay badbaadsataa oo hawsha dhan faraha ayay kala baxdaa isma aysan dhiibin. Mariana waxay go'aansatay inay galka baarista ka furto shirkadda Carlos. xafiiska ayay ku booqatay waxayna uga warrantay sheekadeeda iyo goobta laga helo kooxda looga shaksan yahay afduubka xubnaha qoyskeeda. sidoo kale waxay gacanta ka saartay sawirada labada qof ee la weysan yahay. Mr. Carlos inta uusan bilaabin baarista wuxuu u yeedhay qaar ka mid ah saaxiibadiisii hore ee booliska si ay uga caawiyaan xogtii ugu dambeysay ay ka ogaadaan kiiskan intii aysan xidhin galkooda baarista. Carlos kama uusan helin kaalmadii iyo garabkii uu ka filayay waxayna kula taliyeen inuu kiiskan faraha kala baxo maadaama uu muuqdo mid khatar badan. Carlos dhag uma dhigin digniinta iyo talada la siiyey wuxuuna go'aansaday inuu qaado tallaabadiisii ugu horreysay oo noqonaysa inuu goor habeena ka war doono xarunta ay isugu yimaadaan kooxda lagu raad joogo. haddaba markii uu soo gaadhay xaruntii wuxuu arkay inay tahay guri yar oo meel bannaana ku yaala aysanna jirin guryo u dhow. waxa uu caddaatay haddii uu isku dayo inuu dhowaado in la arkayo islamarkaana uu fashil ku dhammaan doono howlgalkiisu. indhaha ayuu dansaday gaadhigiisa waxa uuna dhigtay meel ka durugsan guriga wuxuuna bilaabay inuu gaadh ka qabto guriga si uu ula socdo dhaqdhaqaaqa cidda gelaysa iyo cidda ka soo baxaysa labadaba. xubno badan oo ka tirsan kooxda ayaa gudaha u galay guriga kuwo kalena way ka soo baxeen. ilaa haddana ma hayo waxa uu ka shakiyo. nuskii dambe ee habeenka ayaa la gaaray. Carlosna kormeerkiisii ayuu sii wataa. waxaa soo jiitay indhihiisa 15 qof oo ka soo baxaya guriga dhammaantoodna maask midabkiisu yahay caddaan ayay xidhan yihiin. meel gaariga u dhow ayay dab ka shideen waxayna bilaabeen inay ku wareegaan. mid ka mid ah ayaa guriga ay ka soo saaray si degdeg ah ayuuna ugu tuuray dabka. si waali ah ayay ugu qaylinayaan codad aan la fahmi karin. Carlos waxa uu caddaatay in nimankani aysan ahayn koox tuuga oo sahlan ayna noqon karaan urur shaydaan iyo wax la mid caabuda kuwaas oo gudanaya cibaado ay ugu dhowaanayaan cidda ay caabudayaan. intaa kadib waxa uu go'aansaday inuu howlgalka meeshan ku dhammeeyo uuna isaga tago meesha si aysan u arag nimanka dabka shitay ee xayawaanka ku gubay. waagu markii uu beri ayuu ku jarmaaday guriga Mr. Maria laakiin lagama furin albaabka waxayna u muuqataa marwadu inay saaka dhaqso u baxday. dariska ayuu weydiiyey waxayna u sheegeen in sidii ay saaka u baxday aysan dib u soo noqon. Carlosna waxa uu caddaatay in kooxdu ay afduubatay Maria si la mid ah odaygeeda iyo wiilkeeda. kiiska inuusan ka hadhin ayuu go'aansaday wuxuuna u dhaqaaqay dhinaca xafiiskiisa. markii uu soo gaadhay xafiiskiisa wuxuu ku naxay daaqadda xafiiskiisa oo jaban wuxuuna u maleeyay in tuug u soo daba martay xafiiska. arrinta yaab kale ayaa ah in xafiiska aan waxba laga qaadan alaabtiisuna ay sidii u taallo. wuxuu miiska shaqada ka helay warqad ay ku qoran tahay waxaa ku wanaagsan inaad faraha kala baxdo kiiskan aan ku qusayn. haddii aad rabto nabadgelyada carruurtaada iyo xaaskaaga jooji baaritaankan. fariintani waxay u caddaysay Carlos awoodda kooxda afduubatay dhammaan xubnaha qoyska Solano wuxuuna go'aan ku gaaray inuu iska xidho galbaarista kiiskan. Carlos xasuus qorkiisa waxa uu ku sheegay inuu isweydiiyey halkii ay ku dambeeyeen xubnaha qoyskan wuxuuna sheegay aragtidiisa aabbaha iyo hooyadu kooxdu inay ka taqaluseen halka wiilkoodii yaraana ay meedheen maskaxdiisa kuna darsadeen xubnaha kooxda. tanina waxay ahayd mid ka mid ah kiisaska uu xalka u waayay dembi baadhe Carlos. inta aynu ku kulmi doono warbixin kale ama kiis kale oo la mid ah kiisaskan oo kale nabaadiino. ugu dambeyntii waxaynu soo gaarnay gabagabada muuqaalkeena maanta. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato kanaalkeena soo dhowo oo subscribe saar. sidoo kale haddii aad horey noola joogtay muuqaalka like saar oo sii faafi si uu gaaro daawadayaal qiimo badan. mahadsanid.